Asalaamu calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaystay inaan soo gudbiyo film action Maraykan ah laguna magacaabo Shooter. Intiinaan u gudagelin muuqaalka, haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqato kanaalka, waan ku soo dhawaynaynaa. Haddii aad hore nala sii joogtayna, ku soo dhawow film kale oo xiiso leh. Filimkan waxa uu ku bilaabanayaa saxara Itoobiya. Bob Lee iyo saaxiibkii Danny waxa ay ka tirsanayeen CIA-da Maraykanka. Waxa ay dusha kala socdeen ugaadhii maalinta ay ugaadhsan lahaayeen. Cabaar kadib waxaa la gaadhay waqtigii ay ugaadhsiga bilaabi lahaayeen. Bob waxa uu adeegsanayay xirfadiisa xoosha dheer ee ka toogashada aagga fog si uu u dilo tiro badan oo ugaadh ah. Boobooyin tiro badan ayaa ka qarxayay hareerahooda, balse ciidamada CIA-du waa iska indhatireen arrinta. Waxa ayna iskaga tegeen Bob iyo Danny, taasi oo sababtay inuu Danny dhinto. Cabaar kadib, diyaarad helikabtar ayaa rasaas ku furtay Bob, isaga oo la xanaaqsan dhimashada saaxiibkii. Waxa uu ku furay rasaastii dhowr mar oo uu la waayay. Ugu dambeyntii waxa uu maareeyay inuu toogto diyaaradda. Diyaaraddiina waxa ay bilowday inay qaraxdo. 3 sano iyo 6 bilood ayaa laga joogaa dhacdadan. Bob waxa uu isaga noolaa buuraha Wyoming. Galabaha ka mid ah waxa uu yimid Colonel Isaac Johnson, waxaana uu u sharaxay qorshe cusub, kaasi oo ah inay dilaan madaxweynaha. Bob waa uu ka diiday markii hore. Isaac waxa uu u sheegay Bob inay tani tahay waajib saaran, loogana baahan yahay inuu fuliyo. Bob waxa uu go'aansaday inuu gudagalo qorshaha. Waxa uuna booqday goobta loo asteeyay inuu madaxweynuhu ka khudbeeyo. Waxa uuna darasayay dhammaan goobaha laga soo weerari karo madaxweynaha. Waxa uuna ogaaday in meesha ugu habboon ee dilku ka dhici kara ay tahay Philadelphia. Bob waxa uu booqday Johnson, isagoona u sharaxay macluumaadka uu soo ururiyay. Dhanka kale, Bob waxa uu la kulmay Sanader, oo ah askari hore gacan weynna ka geystay howlgalka. Maalinka dhacdada, Bob waxa uu ku biiray tiimka Johnson, balse tani waxay ahayd howlgal qorshaysan, laguna doonayay in dabin cagaha loo geliyo Bob. Waxa la gaadhay waqtigii uu madaxweynuhu jeedin lahaa khudbadda. Bob waxa uu sheegay in aanay waqtigan ku habboonayn fulinta dilka, balse Bob waxaa soo weeraray nin ciidan ah. Tiimkuna waxa ay fuliyeen qorshaha dilka, balse kuma aysan guulaysan inay dilaan madaxweynaha. Bob waxaa soo gaadhay dhaawac. Dhanka kale, Bob isaga oo dhaawacan ayaa isku dayay inuu ka baxsado, waxaana uu iska soo tuuray daaqadii ugu dhoweyd. Bob intii uu ku guda jiray baxsadka, waxa uu waddada kula kulmay wakiilka FBI-da, laguna magacaabo Nick Memphis. Bob waxa uu weerarayaa Nick, isagoona ka tiinadaynaya. Magaalada waxaa si degdeg ah ula wareegay booliska FBI-da si ay u baacsadaan Bob, iyagoona u malaynayay inuu yahay dilaaga. Bob waxa uu ciidanka kaga dhuuntay meel lagu meedho baabuurta. Wax yar kadib, waxa uu ka soo baxay meeshii, isaga oona waddada qaaday. Cabaar markii uu waddada ku dhex socday, waxaa hareereeyay ciidanka. Bob ma haysto waddo kale oo uu kaga baxsado ciidanka ilaa aan ka ahayn inuu isku tuuro xagga webiga. Isla markiiba ciidanka FBI-du waxa ay bilaabeen inay raadiyaan isaga, halka Bob uu ku guulaystay inuu ciidanka kaga dhunto doon maraysay badda. Bob waxa uu ka baxay dhanka kale ee webiga, isaga oona halkaa kasii kaxaystay gaadhi xamuula. Dhinaca kale, Bob waxaa laga sii daayay warbaahinta, iyadoona la sheegaya inuu yahay gacan ku dhiig leh. Markii uu gabalku dhacay, Bob waxa uu soo galay magaalka si uu uga iibsado waxa uu u baahan yahay. Bob waxa uu dib ugu soo laabtay guriga, waxaanu weli la tacaalayaa daaweynta dhaawacyadiisa. Dhanka kale, Nick waxa uu ku jiray qaybta wacitaanka. Waxa ay ku guda jireen dabagalka Bob. Habeenkii xigay, Nick waxa uu bilaabay inuu sameeyo baadhis dheer, isagoona u malaynayay inay wax khaldan yihiin. Habeenkii oo dhan waxa uu ku guda jiray baadhitaanka ilaa uu waagu ka baryayay. Subax hore, waxaa xafiiska ugu timid Alordis. Waxay ka tirsanayd ciidamada FBI-da. Alordis waxa ay u sheegtay Nick in la helay meydka askarigii toogtay Bob. Taasina waxa ay u xaqiijinaysaa Nick inay waxan yihiin shirqool. Dhanka kale, Bob waxa uu iska dhigayay makaanig si uu u galo magaalka. Bob waxa uu booqday xaaska saaxiibkii Danny. Xaaska Danny waxa ay u sheegtay inaanay hadlin tan iyo dhimashadii saygeeda Danny. Sidoo kale waxa ay u sheegtay wararka laga baahiyay isaga. Dhanka kale, waxa ay u sheegtay inaanu madaxweynuhu waxba noqon. Dhanka kale, Nick waxa uu booqday dhismayaashii ku hareysnaa goobta dhacdada. Waxa uu helay calaamado 3 gees ah oo ku yaala dhisme duugoobay. Waxa uuna u soo baxay si degdeg ah, waxaana u imanayaa goob internet ah. Waxa uu si dhaqso ah ula hadlayaa khubarada hubka, waxaanay u sheegayaan inay tahay hab loo adeegsado hubka toogashada. Bob markii uu ka soo kacay jiifka, waxa ay Sarah u sheegtay in la toogtay aygiisii. Bob
waxa uu u sheegay in habka keliya uu ku caddayn karo inaanu dembiile ahayn ay tahay inuu la kulmo Nick. Sidoo kale waxa uu diyaariyey qorshaha la kulankiisa Nick. Sarah waxa ay go'aansatay inay caawiso isaga, sidoo kalena waxa ay siisay qori uu lahaa Danny. Qorshuhu waa mid fudud. Sarah waxa ay la kulantay Nick si ay u siiso macluumaadka aqoonsiga gaadhiga Bob, waxaana ay u sheegtay inuu macluumaadkan ka heli doono xogo badan oo ku tacalluqa Johnson. Sarah si fiican ayay u fulisay qorshaha, balse Bob oo aan meel ka fogeyn goobta kala socday xaalka, waxaa xaggiisa soo aaday boolis iyagoona weydiinaya aqoonsi. Ma haysto waddo kale oo aan ka ahayn inuu la dagaalamo iyaga, waxaana uu ku guulaystay isfurdaamintan, waxaana uu si degdega uga baxay goobta isagoona dharkiisa ka beddelaya. Dhanka kale Nick waxa uu gudagalay baadhista macluumaadka gaadhiga Bob, balse Nick gudaha uma geli karo nidaamka sababtoo ah waxa uu fasax ka ahaa shaqada. Taa beddelkeeda waxa uu caawin weydiistay Lourdes. Dhanka kale Johnson waxa uu ogaaday dabagalka uu ku hayo Nick, waxa uuna ciidankiisa ku amray inay soo afduubaan isaga. Qorshuhu waxa uu u dhacay sidii uu rabay Johnson, waxaana lasoo afduubay Nick. Afduubayaashu waxay isku dayayeen inay dilaan Nick. Nasiib wanaagse waxaa ka soo gaadhay Bob, isagoona meel dheer ka toogtay mid iyaga ka mid ah, halka uu kii kale isku dayay inuu baxsado, balse uu dhabarka ka toogtay. Bob keliya waxa uu u socday argoosi, sharciguna ma dhigayo taas. Dhanka kale ciidanka Johnson waxa ay ogaadeen in Sarah ay caawinayso Bob, waxaana loo diray qof soo afduuba. Dhanka kale Bob waxa uu la kulmay Mr. Reid oo ah khabiir ku takhasusay hubka. Khabiirku waxa uu uga sheekeynayay Bob inay jirto farsamo loo yaqaano beber batching, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in xabadda laga soo riday hal qori, balse loo ekeysiyey inay ka timid xabad kale. Tanina waa sida Johnson uu u khiyaamay Bob. Dhanka kale Nick waxa uu wacay Lourdes si uu u helo macluumaad ku saabsan Sander waqtiyadii tegey, waxayna u sheegtay meesha laga heli karo macluumaad la xidhiidha isaga, balse tani waa qorshe uu diyaariyey Johnson si uu dabin ugu noqdo Bob. Waa goor dambe habeenimo. Johnson iyo tiimkiisu waxa ay yimaadeen guriga Sarah. Waxa ay ku guulaysatay inay disho mid iyaga ka mid ah, laakiin waa la qabtay iyada. Dhanka kale Nick iyo Bob waxa ay yimaadeen Virginia oo uu Sander ku dhuumaalaysanayay, waxayna isu diyaarinayeen dagaal adag maadaama uu Bob hore usii sheegay in iyaga loo diyaariyey qorshe adag. Nick waxa uu baranayay xirfadda toogashada aagga dheer, waxayna imanayaan aagga guriga Sanador. Nick waxa uu galayaa ilaalada, halka Bob uu mid u ugaadhsanayay ciidanka ilaalada Sanador. Inta uusan gudaha u gelin guriga waxa uu ku wareejiyey bambooyin tiro badan. Bob markii uu gudaha soo galay, Sanador waxa uu u sheegay inaanu garanayn magaca saxda ah ee Johnson, balse uu u adeegsaday sidii uu Bob u adeegsaday oo kale. Waxa uuna ka sheekeynayaa dabeecadaha Johnson, isagoona odhanaya raasi askari dhaawac ah ka codso sharaftiisa, kadibna gees u tuursida ayga. Howlgalka oo dhan ayaa ah mid loo qorsheeyey si qoto dheer, iyada oo laga faa'iidaysanayo hantida dhaqaalaha dalalka soo koraya, taasi oo ay maamulayaan Meacham iyo Johnson. Dhanka kale Nick waxa uu Bob uga sheegaya aaladda isku xirka inay soo galeen ciidanku, isuna hareereeyeen guriga. Sanador waxa uu sii mashquulinayay Bob. Waxa kale oo uu sheegay in Sarah uu afduubtay Johnson. Sanador waxa uu go'aansaday inuu isdilo, halka ciidanku soo galayeen gudaha guriga. Bob waxa uu bilaabay inuu isdifaaco, halka uu bambooyinkii u fasaxay inay qarxaan, halka Nick uu isku qariyay qiiq si uu u ugaadhsado ciidan badan. Wax yar kadib waxaa goobta timi helicopter. Markan Bob waxa uu ka taxadarayaa inay dhacaan wixii dhacay 3 sano ka hor. Bob waxa uu qarxiyey diyaaradda. Dhanka kale Bob waxa uu Johnson kala hadlayay qorshe uu ku soo daynayo Sarah, waxaana uu u sheegay in wixii 3 sano ka hor ka dhacay Ethiopia uu ka dambeeyey Sanador, uuna ka duubay muuqaal qarsoodi ah. Taa beddelkeeda waxay ku ballameen inay ku kulmaan wax yar kadib, iyagoo saaran buurta sugayana Bob. Waxaa si lama filaan ah usoo muuqday qof si dhaqso ah waxa u toogtay ciidanka qarsoodiga ah ee Johnson, laakiin tan dhammaanteed waa khiyaano iyo qorshe la sii diyaariyey. Ninkaasi waxa uu ahaa Nick, waxa uuna gashanaa jaakad bir ka samaysan. Taa beddelkeeda waxa ay yaraynayaan taxadarka. Dhanka kale waxaynu u jeednaa xafiiska FBI-da oo ay soo gaadhay warqad ka socota Nick. Bob waxa uu dilayaa ninkii isku dayay inuu dilo Nick iyo sidoo kale afduubaha, waxaana uu soo dhowaanayaa Johnson isaga oona hubka ka dhigaya. Waxa uu ka sheekeynayay musuqmaasuqa qotada dheer ee ay sameeyeen. Bob waxa uu wacaya ciidanka, dhammaantoodna waxay isku dhiibayaan ciidanka. Dhowr maalmood kadib gudaha Washington DC, Bob waxaa loo oggolaaday inuu kulan gaar ah la yeesho xeer ilaaliyaha guud. Sarah, Johnson iyo Nick ayaa iyaguna goobta ku sugnaa. Bob waxa uu ka codsaday in loo keeno qorigii uu lahaa, lagana soo helay goobtii uu ka dhacay dilku, waxaanu isticmaalayay inuu ku caddeeyo inaanu wax dembiya lahayn. Waxaanu Bob u sheegay inuu biinka ka beddelo mar kasta oo uu isticmaalo qoriga. Taa beddelkeeda
waxa uu hortooda ku caddeeyey inaanu qorigu shaqaynayn. Ugu dambeyn, xeer ilaaliyuhu waxa uu aqbalay caddaynta Bob, isagoona caddeeyey inaanu wax dembi ah lahayn. Dhammaadka filimka, waxaynu u jeednaa Bob iyo Sarah waxay u ambabaxayeen safar, waxay go'aansadeen inay samaystaan nolol cusub. Filimkuna halkaasi ayuu kusoo dhammaaday. Fadlan haddii aad nala soo gaadhay halkan, kana heshay qaabkaan idinku soo diyaarinay filimka, fadlan like muuqaalka si uu u gaadho dad badan. Subscribe-na channelka. Mahadsanid.